السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمان أرداد خيمة له وحرجنا نتي وعنتين سيدو كلا نجن وإذن وعناهي كسر دبادة عشر كنا لباتني كوات رنانتي وحبذا أي نسوج جدنا كورس كان جرافيك ديزاين كا أو عاو هدير وحين مرينا عشر كنا لباتني كوات مدازن ومد آد لو فرحه runtii ardaydii ila soo socotay wax waliba ila soo sameeynay ila soo dadaalaysay waxaan rajaynayaa hadeer inay kooriska wax badan ka fahmeen wax badanna ay barteen ugu horeen marka cashirkan caaw waxaan ku sameyn doonaa poster design kaasoo u sameyn doono qof cameraman ah ama qof ah digital photography qof sabir qaada ah ayaan u sameyn doonaa runtii waa poster la dhigto sida social media iyo meelaha kale taasoo lagu raadinayo shaqo ama lagu raadinayo macaamiil cusub si loo helo okay ugu horeen waxaan soo furanaynaa application keeni pixellab marwal pixellab sidaan ay kugu soo furmi doonaa cancel iska door ama okay hadii aad daado wuxuu ku soo furi doonaa project hore kugu socday aniga hadeer marow projectgaas hore ugu socday in la soo furo cancel ayaan iska dhihi okay cancel markaan dhoo qoraalkaani ayaan delete gareen mar waliba waad ogtahay shaqadaasi hadeer lagu ma sheegayo oo bilowga ayaad ku soo aragtay okay hadeer qoraalkaas ayaan iska delete gareenay hadeer marka waxaynu u baahanahay sabiradii iyo waxyaabihi aan adeegsan lahayn runtii posterkan sameyn doono waa noocan hortiina ka muuqdo waxaan filayaa inaad aragteen posterkan ayaan sameyn doonaa ama aan design gareen doonaa okay ugu horeen waxaynu tagaynaa applicationka Pinterest mar waliba wuxuu ka caawinayaa sidaan ku sheegay inaad hesho waxyaabaha aad u baahan tahay applicationka Pinterest markaynu sidaan u soo galno waxaynu halkaan ka searching gareen doonaa waxyaabaha aynu u baahanahay okay searching for ideas ayaan ku dhufanaynaa kadibna waxaan ku qori doonaa waxaynu rabno ayaan ka raadsanaynaa okay cameraman waad qori kartaa sidoo kale waxaad qori kartaa digital photography okay ugu horeen cameraman ayaan qorayaa kadibna waan isla arki doonaa sidaad arkaysa hadeer waxaa inoo soo baxay cameraman sidaad u taqaano ama sabir qaadayaal ayaa inoo soo baxeen sidaad halkaaniba ka arki karto dhammaan dhalintaan halkaan kaaga muuqato waa sabir qaadayaal sidaad arkayso okay sabirka ugu horeeya oo kale aan doorano waa sidaasi waa cameraman ujeeda sabiradan waxay u badan yihiin dad cameraman ah iyo sidoo kale dad sabir laga qaadayo okay marka hadeer waan isla aragnay oo intaani waynu isla fahamnay oo qof cameraman ayaynu raadsanaynaa marka hadii aad rabtana midkaan aad ku dul raadin kartaa adigoo ku dhufanayo calaamadaasi searchingka kadibna waxaad heli doontaa dad badan oo actionkan kala sameynayaan ayaad helaysaa sidaad halkaaniba aga jeedo ama aad ka arkayso okay hadeer marka midkaani ayaa aniga ahaan isoo jiitay asiga ayaan la soo degayaa okay download ayaan ku dhufanayaa marka hadeer markaan sidaan u soo degsado waan ka soo noqonayaa kadib waxaan imaanayaa Google-kayga waxaan ku sameyn doonaa wax loo yaqaan remove pg waa taqaanaan hadeer idin ma sharxayo okay remove pg-gaaga raaso kadibna sabirkan waxaad ka soo sameyn doontaa background-ka ayaad hawada aga soo cuni doontaa ama gabi ahaan background-ka ayaad ka saari doontaa hadeer marka sabirkayga ayaan upload soo dhihi doonaa kadibna sabirka ayaan soo dooranayaa waakina isla markii waxaa la bilaabayaa in laga qaado background-ka background-ka ayaa laga remove gareen doonaa waa ujeedaa waa laga qaaday kadibna download ku soo dhufo oo dib ugu soo laabo hadeer waxaan tagi doonaa application keeni pixellab aynu imaanaynaa okay marka hadeer pixellab keena ayaan sidaan ku joognaa waxaan iska saxi doonaa background-ka okay background-kaaga color ka dooro marka colorka rabtid ka dhigo balse doodi waad iska bedeli kartaa hadii colorada ay ku qancin waayaan waad iska bedelaysaa balse waxa khasab ah ugu horeen horto inaad color soo doorato kadib waad iska bedeli doontaa okay colorkan ayaan soo doortay aniga kadibna plus ayaan dooranayaa kadibna from gallery ayaan dhihi doonaa ugu horeen sabirka ayaan soo dhiganayaa waxyaabaha xiga kadib ayaan ku soo darsani doonaa okay hadeer marka sabirka sidaani ayaan ugu soo darsaday halkaani oo kale ayaan dhigani doonaa okay sidaasi aynu halkaasi u dhiganaynaa hadeer sidaad aragtaba sabirkeena waxaan iska saxi doonaa positionka aynu rabno sidaas oo kale ayaynu ka dhiganaynaa oo dhexdaas oo kale ayaan ku sameynaa kadib waxaan soo dooran doonaa shape ayaan ku soo darsan doonaa okay balasta kadibna shape circle ka soo dhig colorka rabtidna soo sii shape-kaaga
oo kalaradan kalar ka mid ah ama kalarka aniga isticmaal kalarkani oo jaalaha ayaan isticmaali doonaa oo tiqa ah ayaan adeegsanayaa okay wax yar sidaasi ukun oo kale ka yara dhig kadibna sidaas halkaani ugu soo yara aadi oo asiga ku aadi qaybtaas aga aadi hadeer sidaad arkayso shape-kii sidaas ayaynu yeelnay kadib waxaan dhigi doonaa balaas mar kale shape ayaan soo dooranayaa kadibna circle ayaan ka dhigayaa shape-ka kadibna waxaan ka dooran doonaa kalarkii hadeer oo kale ayaynu ka soo dooranaynaa okay shape-kiina hadeer marka sidaas ayaan yeelnay kadibna waxaan sameyn doonaa shape-ka waan yareynaynaa kadibna halkaani soo fur oo qaybta hoose u deji shape-kaasi gadaal ayaad ka dhigi doontaa oo waxaad ku aadin doontaa cameraman-ka madaxiisa okay sawirkaani iyo midka ugu sareeya labadaasi iska soo xir midkaasi dambe ayaynu ka shaqeyn doonaa okay marka hadeer waxaynu sameyn doonaa midkaani ayaynu ku aadinaynaa halka aynu rabno ama barta aynu rabno inaan ku aadino ayaynu ku aadisanaynaa okay xoogaa weli yare kadibna halkaasi sidaas ugu yara aadi kadib waxaan sameyn doonaa asiga unban copy dhihi doonaa markaan copy dhahno kadib edit dooro oo shape-kaaga edit ka dooro kadibna opacity-giisa ayaad 0 ka dhigi doontaa okay opacity-ga 0 ka dhig kadib waxaad aadaysaa stroke-gan waxaad ka doorataa kalarkii ku yara qanciya ama kalarkii noocaas ahaa dooro adiga ayay ku khuseysaa kalarkaasi ama kalarkii kalood isticmaalaysad xilligaasi soo dooro kadib tig soo dheh markaa tig soo dhacdo opacity-ga ayaan ka dhimi doonaa opacity-ga kalarkaani khafiif ayaynu ka dhigaynaa okay ilaa iyo 25 oo kale ka dhig kadib tig soo dheh kadibna xoogaa yaree siiskiisa opacity-ga kadibna halkaasi ku yara aadi okay marka halkaasi ku aadi hadeer saad arkaysa ninka ayuu ka soo horeeyaa kadibna qabo shape-ka qaybta hoose gee oo gadaal ayaynu ka doonaynaa ama aynu ka rabnaa okay marka midka hore ayaa inaga dhaqaaqay sorry midka hore ayaan iska xirayaa okay markaan xiro kadib waxaan saxi doonaa midka aan ku soo darsaday cabirkiisa ayaan saxayaa okay cabirkiisa ayaan saxi doonaa oo waxaan rabaa wax yar in geesaha uu kaliya ka muuqdo oo sida wax garaangar ah oo kale inuu u ekaado ayaynu doonaynaa oo wax kale kama doonayno kamana rabno okay hadeer sidaan filayo aniga waa ii fadhidaa oo ii saxan yahay kadibna waxaan ku xijin doonaa waxyaabaheena xiga ayaynu ku soo darsani doonaa okay marka halkaani ayaan tegaynaa oo waxaan iska xiri doonaa midkaasi kale hadeer marka waxaan ku soo darsanayaa mar kale shape ayaan ku soo darsanayaa okay kadibna shape-kayga radius ayaan ka dhigayaa shape-kayga waxaan ka soo dhigi doonaa kalarkaasi madowga ah kadib tig ayaan soo dhahayaa tig markaan soo dhaho shape-ka madowga halkaani ayaan keenayaa okay halkaani ayaan dul keeni doonaa okay shape-kayga madowga ah halkaani ayaan dul dhigayaa sidaas oo kale ayaan halkaasi u dhigayaa kadibna xoogaa waan yareynaynaa markaynu shape-keena halkaasi sidaasi u dul dhigano kadib waxaynu isticmaali doonaa waxyaabaha kale ee aynu rabno ayaan halkaani kusoo darsani doonaa ugu horreyn qoraal ayaan kusoo darayaa qoraalkaasi oo micnihiisa u taagan ama ah digital da-da koowaad waxaad ka dhigaysaa da' weyn ah kadibna wixii kale xarfi yariisa ahaado okay digital markaan sidaas ugu soo darsado siiskeeda ayaan soo yara siyaadinayaa kadibna tig ayaan soo dhihi doonaa kadib waxaad tagayaa ab fonti adiga fartaa rabtid soo dooro anigana sidoo kale fararka ugu jiraan farar ka mid ah ayaan soo dooranayaa okay fartaasi ayaan ka soo dhigan karaa haddii ay qancin waaysan inaan ku noqdo ayaan iska soo bedelayaa oo waxweyn ma ahan farta laakiin ha ahaato far yacni xoogaa fararkan khalkhalooca oo kale ha ahaato oo fararkaani ayaa qurux badan inaad ku qorto okay waxaan rajeynayaa inaad fararka noocan ah haysataan haddii aadan haysaninna waxaad ka heli kartaa website-kii aynu soo baranay oo website-kaas online ka raadso waad helaysaa okay middaasi iyo middaani labadan ayaan ku wareersanahay balse middaani ayaan ka dhiganayaa okay middaani ayaa ilo qurux badan ayada ayaan sidaas halkan usoo saaranayaa digital oo run ahaantii qaab qurux badan u qoran waa kadibna waxaan sameyn doonaa photography ayaan kusoo darsanayaa digital photography yacni digital photography-dan waxay u taagan tahay keliya sawir qaade okay halkan waxaan ku qori doonaa photography okay digital photography okay photography xarafkaas ugu horeeyo waxaan ka dhigi doonaa xaraf weyn okay photography
inta kale ha iska ahaato yacni sorry xarfahan oo idil digital photography oo idil waxaad ka dhigi doontaa xarfo weyn double t-daas ku dhufo iyadoo dhan xarfo weyn ha ahaato okay kadib marka waxaad samayn doontaa waxaad tagi doontaa ab font waxaad ka soo bedeli doontaa farta okay farta arabti soo dooro anigana far igu jirto baan soo dooran doonaa okay fartaasi oo kale ayaan ku soo deynayaa digital photography sidaasna ugu qoranto ayaan rabaa kadibna siiskeeda ayaan soo ziyaadinayaa okay waa ujeedaa hadeer waxaa sidaan ku haystaa yacni waxay u taagan tahay sabir qaade qofkaani waa digital photography haddii aad maqasho qofkaani waa sabir qaade bay u taagan tahay oo digital photography marka halkee uu ka shaqeeyaa sabir qaadaan meel buu ka shaqeeyaa Soomaa studio ayaan dhihi doonaa digital photography studio qoraalkaasi koowaad ayaan copy dhihi doonaa kadibna edit ayaan dhihi doonaa halkaan waxaan ku qori doonaa studio okay studio ku qor sidaas ugu soo qor kadibna tick soo dheh kadib halkaasi soo dhigo hadeer marka waxaanu sidaan ku haysanaa qoraalkii digital photography studio kadib waxaan sameyn doonaa shapes ayaan soo dooranayaa afwan ama shapekan ii dooro kadibna copy ka samee kadibna waxaad tagi doontaa color oo colorka ayaad ka bedelaysaa colorka fur kadibna colorka noocaani oo jaalaha ah ayaan isticmaalaynaa kadibna tick ayaynu soo dhahaynaa okay kadib waxaan sameyn doonaa horta waan yareyn doonaa shape-ka waan yareynaynaa shape-yada shape yaris ayaynu ka dhigi doonaa okay sidaas oo kale ayaan shape yar ay dhigi doonaa copy ayaan ka sameyn doonaa kadibna waa soo yar zoom garaa doonaa kadibna waa iska yareen doontaa dhib ma lahan shape-yada waxaa laga rabaa inay noqdaan shape yar yar ah lama rabo shape aad u waaweyn lama rabo sidoo kale farqi yar inuu u dhaxeeyo oo wax yar ay kala sigtaan ayaa loo baahan yahay okay soo qabso adiga gacantaada iska gaabe anigaba gacanteyda ayaan ku saxaya oo wax kale ma adeegsanayo isku day inay dhibcahaasina noqdaan kuwa yacni isku mid u muuqda yaysan noqonin dhibc yacni oo zaa'id u ka kala weyn ama sidoo kale kala qalooca yaysan noqonin ha noqdaano dhibc yacni isku sidkan ama isku aadan sidoo kalena marka siiskooda la fiiriyo isku mid noqonayo okay afartan xabo ayaan soo gashanaynaa okay waa ujeedaa hadeer marka sidaasi ayaynu iskugu keennay oo hadeer waxaan rajaynayaa ama aan filayaa inay xoogaa inuu yara toosan yihiin hadday wax yar inaga dhiman yihiinna waan iska yar saxi doonaa adigana iska sax fadlan gacantaada iskaga hagaaji oo waxay u baahan tahay tartiib iyo waqti qaadasho marka waxaan ku leeyahay take your time tartiib waqtigaaga u qaado oo isku sidki oo hagaajiso waxyaabahaaga oo idil design marka shaqo lagu jiro igu soo orod ma ahan ama kala tuur ma ahan sidaad arkaysa hadeer waxay u muuqdaan dhibco isku mid ah mar waliba wax ka shakisan isku day inaad iska hagaajiso si mar waliba posterka aad sameynayso oo u noqdo mid feeling ah ama mid wax badan soo koobay ama mid la jeclaysto si uu u noqdo kadib marka hadeer waxaan ku soo darsan doonaa qoraal ayaan ku soo darsanaynaa oo halkaan qoraal ayaan ku soo qori doonaa photography-gan ama sawir qaadaan shaqadiisa maxay tahay sawir qaadayaasha way badan yihiin dad baa yacni aroosyada le qaabilsan dad baa waxay qaabilsan yihiin wariyanimo ina dhacdooyin waxyaabahaas ay soo duubaan marka qofkaani shaqo badan ayaan u yeeli doonaa ama aan u diri doonaa 4 shaqo ayaan u diraynaa okay waxaan ku dhufanaynaa balaas kadibna qoraal ayaan ku soo darsan doonaa oo halkaan waxaanu ku qori doonaa wedding ugu horreyn qofkaani aroos ayuu duubaa wedding ayaan dhihi doonaa kadibna tick ayaan soo dhihi doonaa halkaan ayaan keeni doonaa wedding waxaan ku aadin doonaa bartaasi koowaad qofkaan ugu horreyn aroosyada ayuu qaabilsan yahay shaqadiisa koowaad waxay tahaybo inuu aroosyada ama nikaaxyada meherada oo duubo okay sidaan ku sheegay cameraman shaqooyin badan ayuu qabtaa digitalkaas xoogaa yar kor ayaan u yara qaadaynaa kadibna qoraalkaas halkaas ayaan geenaynaa studio xoogaa waan sikinaynaa marka si ay halkaan u noqoto mid waadax ah okay wedding ayuu qaabilsan yahay mar kale waxaan dhihi doonaa balaas ayaan dhihi doonaa waxaan ku soo darsan doonaa qoraalkeena kale okay qofkan fashionista waaye ama qof yacni fashion wuu duubaa oo sawirada fashionkana wuu qaadaa okay ayaan soo dhihi doonaa fashion kadibna halkaas ayaan keenaynaa
xoogaa siis ayaan ku yara darayaa okay qofkaani sawirayaashan wuu ka qaadaa dadka fashionista ah fashionista waa dad dharka xayeysiiya iyo waxyaabahaasi inaad fahmaysaan ayaan rajeynayaa okay marka qoraalkan xiga waxaan ku soo darsan doonaa event waxa waaye yani dhacdooyinka qofkaani wuxuu baduubaa ama dhacdooyinkana wuu duubaa shaqadiisa howl yar ma ahan event waxay u taagan tahay dhacdooyinka ayuu duubaa yani qofkaani shaqadiisa waxaa ka mid ah inuu dhacdayaasha soo duubo meelaha ay dhacdooyinka ka dhacaan inuu soo duubo oo uu sawiro ka soo qaado tusaalahan meel baa dhib ka dhacay xaafad baa dhib ka dhacay ka jiro marka wuu tagayaa sawir ayuu ka soo qaadayaa sidoo kale muuqaalo oo cadeymo ah ayuu ka soo duubayaa okay marka ku aadi fashion tan afta koowaad xarafkaasi weynta ku ahaato eventina sidoo kale xaraf walba xaraf weyn ka dhigo markaad halkaan isticmaalayso okay kadibna commercial ayaan ku soo darsan doonaa qofkaani waa qof yani commercial kana wax u xayeysiiya ama muuqaalo u duuba commercial hadii aan ku micneeyo waa ganacsadayaal okay waxyaabaha ganacsiga khuseeyo ayaa waxa la yiraahdaa commercial okay soo dheh kadibna halkaani keen okay kadib soo yara zoom garee sidaas oo kale halkaas u dhig qofkaani waxyaabahani ayuu qabtaa ayuu duubaa intaan shaqo sawiran wuu ka qaadaa wuuna duubaa sidoo kale wax waliba looga baahdo ayuu ka qabtaa shaqooyinkaasi okay marka hadeer waxaa inoo xiga inaan ugu dambeyn ku soo darsano wax loo yaqaano qofkan halkii laga la xiriira okay qoraal ayaan halkaan ku soo darsan doonaa oo contact me ah okay waxaan halkaan ku qori doonaa contact me for more info okay contact me for okay afwan for more info and more details waa dhihi kartaa okay waxay u taagan tahay yani wixii dheeraad ah ama hadii aad yani howlahan oo kale in lagu qabto u baahan tahay shaqaaleysiiso halkaan igala soo xiriir ay u taagan tahay ab font ayaan tagayaa farta ayaan ka soo bedeli doonaa okay contact me more info ayuu leeyahay kadib wixii yani dheeraad ah warbixin ah halkaan igala soo xiriir hadii aad raadinayso qofku qabta shaqooyinka noocan oo kala ah okay kadib adeer marka waxaan sameyn doonaa shape-kan ayaan copy dhihi doonaa kadibna waxaan ka bedeli doonaa color-ka okay color-kii hadeer oo kale ayaan siineynaa color-rada aad isticmaalaysidna badanaha isla haadaano color isla ha noqdaano yaree kadib halkaani soo dhig oo hoose icon-ka oo telefoonka ayaan dul saari doonaa okay marka halkaani waxaan ku soo darsan doonaa phone-ka calaamada phone-ka ayaan ku soo darsanaynaa waa taqaanin halka laga soo dego marwina waqtiga nagu dheeraado waan ku soo darsan doonaa oo ii diyaarsan yahay oo maskaxda mobilka uu jiraa balaas ayaan dhihi doonaa kadibna from gallery ayaan dooranayaa kadibna waa midkaan iigu horeeya waan la soo dooranayaa oo waan ku soo darsanayaa tig ayaan soo dhihi doonaa kadib waad u jeedaa sidaasi ayuu igu soo galay kadibna waxaan dul saari doonaa ama aan ku aadin doonaa bartaasi xoogaana yar qalooci si uu u noqdo mid ku toosan okay kadibna u jiid dhanka oo waxaad ku aadisaa shape-kaasi aad soo dooratay aad sidaas ugu dul aadinaysaa hadeer marka waxaan ku soo dari doonaa number-ka okay waxaan dhihi doonaa tagastiga inooge kadibna waxaan dhihi doonaa balaas 252 oo furaha dalka ah kadibna waxaan dhihi doonaa eberka bilaab eber 6 aniga numberkayga ayaan gelinayaa maadaama ay tahay for example berika maalin adigana sidaas baad u sameyn doontaa kadibna waxaad tagi doontaa ab-gaaga kadibna fontiska aad rabto ama noocaad jeceshahay ka soo dooro oo ka soo dhigo sidaas ayaan ka soo dhigtay aniga ahaan kadibna waxaan ku sameyn doonaa waxaan gelin doonaa xoogaa spacing yar ayaynu gelinaynaa si uu noqdo qoraal kala baxsan oo la fahmi karo ama number la fahmi karo okay marka sidaasi ayaa numberkii halkaas u soo dhiganay okay marka hadda waxaan sameyn doonaa discount oo kale 50% ayaan dhihi doonaa okay discount
discount ayaan halkaas ugu qori doonaa. Okay, boqolkiiba 50 sidaas oo kale ayaad usoo dhihi doontaa. kadibna waxaa laga rabaa marka qoraalka discountiga inaad halkaasi bartaasi aad ku soo aadiso, kadibna aad fontiska ka soo bedesho. Okay, sidaas oo kale xataa ka soo dhigo discounti boqolkiiba 50 oo kale ayaa la sameynayaa ama ayuu qofkaani sameynayaa. Okay, yani arrintaani adiga mar un way ku qabsan kartaa, yani inaad cameraman noqoto waa laga yaabaa. marka doodii cameramanka iyo waxa isku ma xirna qofka wax edit gareynayo oo design gareysanayo, balse haddii aad haddeer iska barato beri waad ku faa'iidi doontaa sidaan anigu is leeyahay. Okay, marka haddeer waxaa inoo dhiman waxyaabo yaryar oo qurxin ah ayaynu ku soo darsanaynaa. Okay, shape ayaan dooranaynaa, waa qurxin kaliya. qurxintan waa muhiim, designkaaga inuu mid qurux badan noqdo waa muhiim. colorkaas ayaan kasoo dooranaynaa, kadibna circle-keeni ayaynu ka dhiganaynaa. kadibna waxaan ku aadin doonaa qaybtaasi xusulkiisa oo kale ayaynu ku aadinaynaa. Okay, sidaas oo kale ayaynu aadinaynaa, balse halkaani ayaynu tegaynaa anagoo geyn doono barta ugu dambeysa ama sawirka ka gadaal marin doono. Okay, sawirka qofka ayaad gadaal ka marinaysaa, shape-kaasi u jiid halkaasi, kadibna sidaas oo kale bartaas iska dhig. haddeer waad arkaysaa wuxuu gadaal ka maray qofka suxulkiisa, kadibna xoogaa yaree suxulka keliya ku ekaado, yaree xoogaa sidaas oo kale halkaasi u dhig. Okay, keliya waa yar qurxin. waxaan ku dhahay qurxintan waxay qayb ka tahay inaad wax qurxan soo saarto. kadibna copy ayaan ka sameyn doonaa, copy ayaynu dhehaynaa. kadib waxaan tagi doonaa edit ayaynu dhehaynaa, shape-ka edit dheh. kadibna waxaad sameyn doontaa opacity-giisa 0 ka dhig. kadibna waxaad u yeeli doontaa stroke yar ayaan gelinaynaa. kadibna stroke waxaan ka dhigi doonaa color white ah ayaynu ka dhigaynaa. Okay, hoos imaaw, color white ah ka dooro, stroke halkaasi oo kale ayaa colorkiisa laga doortaa. kadibna yaree xoogaa aad u yaree. kaliya waxaan ku dhahay waa iska qurxin, ma ahan wax oo sidaas u weyn. waa inaad yacni designkaaga ka dhigto mid aad u qurux badan ayay ka qayb qaadanaysaa. halkaas oo kale ayaad dhigi doontaa. Okay, kaliya waxaan ku dhahay waa qurxin, halkaasi oo kale ayaad sidaas u dhigaysaa. isla asiga unbaa copy ka sameyn doontaa. kadibna waxaad dhigi kartaa geeskaasi ayaad yar saari kartaa. Okay, geeskaasi oo kale ayaad dhigi kartaa mar kale. kaliya waa intaasi iska qurxin ayay ahayd oo wax kale ma ahan. marka haddeer waxaan filayaa inaad wax badan ka fahamteen designkani inuu yahay design aad u qurux badan. sidoo kale waxaan halkaan ku qori doonaa hear me, yacni qofkaani wuxuu leeyahay shaqaalaysiiso oo kale. Okay, hear me ayaan ku qori doonaa, kadibna farwaaweyn ka dhigo. kadib halkaani ayaad keenaysaa, halkaasi ma ujeedaa ayaad dhigi doontaa. markaa sidaas halkaas u dhigto waxaa qurux badan inaad shape yar u yeesho. shape ayaan soo dooranayaa, kadibna shape-ka circle ayaan ka dhigayaa oo buux. halkaani 100 ka dhig. dadka qaar shape-kan way qaldaan oo halkaani 100 ka dhig, radius-ka 100 ka dhig. kadibna shape-ka sidaas u yara dhuubi. Okay, kadib marka shape-ka colorkiisa bedel, color black ah iska sii. kadib tig soo dheh, kadibna halkaasi sidaas u aadi. kadib qabo qoraalkaani ka hoos mari, shape-ka qoraalka ka hoos maro. kadibna sidaas oo kale ayaad tig usoo dhigi doontaa. waxaad isku hagaajin doontaa shape-ka yaraa iyo qoraalkaaga. Okay, beri ka maalin nashqad noocan ah qof cameraman ayaa kaa dalban karo, marka waa muhiim inaad fahamto. Okay, kasoo sika shape-kaas kale yuusan kaa gaarin. kadibna sidaas oo kale halkaas usoo yar dhig. kadibna qoraalkaaga oo hirmida halkaani dulkeen. kadib haday ku qancin waasa fontiga ab font imaw, kadib ka bedel fontiga, ka bedel oo boldigaas oo kale daa ka dhigato waa okay. kadibna siisku yara dar, hadduu siiska kugu yaryahay siisku yara dar si ay u noqoto mid soo muuqato halkaasina xoogaa dhexda aga jirto oo kale.
kadib waa ujeedaa sidaas ayuu ku soo baxay haddeer marka sidaan ayaan ku dhameynay poster ayaynu sameynay oo aad u qurux badan marka posterkaaga background-ka aan ku qarxinin oo ku qancinin waad bedeli kartaa halkaan imo background-ka iska bedel waa ujeedaa kalarkan daa ka dhigto waa qash kalarkan madowga daa ka dhigto aad buu ugu soo baxaa sida dargeyso kalarkaanin waa mid ka haddeer isticmaalaynay kalarka cadaanka waa marax kalarkan sidoo kale waa marax marka kalar oo ku soo baxaya jiro kalarada uu ku soo baxi doono saaro kalarkan kala xoogaa waa iska yara macquul kani waa iska yara macquul naftirkii okay kana taa waa macquul waa ujeedaa kalarka cagaaran asigana waa mid macquul ah marka waxaan rajaynayaa inaad ila fahmaysaan intaan waxa uu sameynaya waxay tahay inaad wax ka fahamtaan kaliya balse kalarkaasi gadaal adig ay ku taalaa sidoo kale qofkaad u nashqadeynaysid ay u taalaa oo hadii uu rabo sidaasi kalarka uu doorto ayaad aga dhigi kartaa wax weyn ma ahan okay marka halkaan discountiga ayaan xoogaa iska hagaajinaa okay wax yar kadibna qoraalkaani ayaan ku aadinayaa marka meel walba oo ka shaqeyso design-kaaga mar waliba waa inuu waqti qaato design waqti ayuu qaadanayaa casharada waxaa laga yaabaa inaad dhibsataan dheerkooda marka haddeer waa save doonaa save ayaan dhihi doonaa kadibna save as image mar walibana halkan altera ka dooro kadibna save to gallery ka dooro okay marka background mar kale ayaan ka bedeli doonaa kalar kale ayaan ku seefanaynaa kalarkaasi madowga tiqa ah ayaan ka dhiganaynaa kadibna save as image kadibna altera kadibna save to gallery okay marka intaas aan aga gudbo kadib waxaan tagi doonaa galleryga mobilkeyga waan ku tusin doonaa nashqadaha aynu soo saarnay waa ujeedaa waa design aan inaba caadi ahayn nashqad aan inaba macquul gal ahayn oo qof walba ku fikirayo computer in lagu soo sameeyay marka waxaan rajaynayaa saaxiibayaal inaad casharka la fahamteen casharkeena halkaas ayaan ku soo koobaya intaan ku kulmi doona casharkan casharka xiga waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo